بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عشر كيني أيان سي وضعنا chapter كي electromagnetic induction ساقسين باللبضانبات أيان كل حجرنا لبا عشر هنسوق هذا عشر كي كواد وحن كسو هذا electromagnetic induction كا إيقاب induction كأسمى أو تب electricity لوغة دليو magnet إيه conductor coil أيوة motion سمينا lesson 2 waxaan ku soo barnay Faraday's law xeerka Faraday oo ahaa isbedel ku yimaada magnetic fluxka iyo isbedelkaasi waqtiga uu qaato. Today waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaan Lenz's law. Lenz's law waxaa loo yaqaanaa xeerka Lenz ayaan baranaynaa. Lesson objectives hadafyada casharka laga leeyahay by the end markuu dhamaado lesson kani ardayga waa inuu awoodaa lambar 1 explain noo sharaxaad ka bixin karo concept fikradda oo Lenz's law waxaa loo yaqaanaa inuu qofka ardayga yaqaano iyo lambar 2 discuss inuu discuss ku sameey karo ama dood uu ku sameey karo xiriirka ka dhaxeeya Faraday's law xeerka Faraday ee saaqsiinta iyo Lenz's law. Lambar 3 ardayga wuxuu awoodi doonaa inuu sheego tijaabooyin yaryar taasoo lagu sharxayo Lenz's law xeerka Lenz. Lenz's law marka waa kana koor intaan Lenz's law-ga aanan guda galin marka ugu horeeyo waxaan jeclaystay inaan ardayda aan fahansiiyo qaabka uu shaqeeyo Lenz's law-ga. Lenz's law guud ahaan hadii state Lenz's law waxaa ku soo koobi kartaa xeerka Lenz wuxuu yahay waa the direction jihada of induced current dabka dhashta jihada uu u socdo waxaa loo yaqaanaa Lenz's law macnaheedu dabku wuxuu ka dhashtaa magnetic flux wuxuu ka dhashtaa magnet iyo coil la isku dhaliya magnet iyo coil-ka ayaa isku dhaqaaqaya waxay sameynayaan motion marka labadooda ay falgalaan magnetic flux ayaa halkaasi macnaha isbedel ku yimaada magnetic flux-ka ama qaabka uu electricity u dhashto waxa xeerkaasi waa Faraday's law. Faraday's law waa xeerka induced current-ga qaabka uu current dabka uu ku dhashto. Lenz's law-gana wuxuu sharxayaa dabkaas dhashtay direction-ka uu u socdo. haddaba direction-ka dabku u socdo ayaan marka hore ku hormarayna iyo qaabka uu direction-ka uu ku sameysmo kadib ayaan waxaan soo laaban doonaa xeerka Lenz's law anigoo fahansan ayaan rabnaa inaan qaadano Lenz's law-ga xeerkiisa. marka ugu horeeyo lambar 2 waxaan baranaynaa direction-ka jihada of magnetic field ee bedka birlabeed or ama current-ga. dabka markuu dhalanayo waa Faraday's law. dabkaas dhashtay direction-ka uu socdana waxaa lagu bartaa Lenz's law xeerkaas waa Lenz's law. marka direction-ka see ku soo saareynaa direction dabka u socdo seen ku soo saareynaa to find si aan u ogaano the direction-ka jihada of the current iyo qolqol danabeedka ama ayada ama korontada dabka we use waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan right hand thumb rule ama waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan right hand grip rule oo xeerka gacanta midig waxaan isticmaalaynaa right hand grip rule. marka right hand grip rule muxuu yahay marka right hand grip rule wax kale ma ahan waxa la isticmaalaa suulka iyo faraha la isticmaalayaa suulka iyo faraha. marka faraha the fingers faraha points waxay tilmaamayaan the conventional direction jihada uu current-ga u socdo and the thumb suulkana waxa uu tilmaamayaa mar walba north pole-ka. marka direction-ka dabku meesha u socdo ku ogaatid lambar 1 suulka waxaad aadinaysaa dhinaca north-ga mar walba north-ga meesha uu ka jiro ayaad waxaad aadinaysaa suulka. markaad suulka aad aadiso dhinaca north-ga boolka mar cirifka north markaad suulka aadiso kadib automatically waxaad helaysaa direction jihada uu current-ga u socdo. mar walba marka north-ga markaad suulka aadiso automatically current-gan wuxuu u socdaa isla direction-kii aad suulka aad aadisay ayuu current. tusaale oo kale sida sawirka idinkaga muuqda oo kale sawirka hadda coil halkan waxaa inoo yaalo magnetka waxaa lagu duubay coil ayaa lagu duubay. marka ugu horeeyo lambar 1 marka boolka ama north boolka coilka wuxuu inaga jiraa suulka waxaad aadinaysaa xag north-ga marka ugu horeeyo north boolka aad suulka aadiso waxaad ogaanaysaa direction-ka uu socdo. marka direction-ka halku u soconaya marka direction-ka dabkaas wuxuu noqonayaa xagga north-ga oo suulka ayuu soo aadayaa. marka direction-ka markuu dhinaca north-ga boolka uu soo aadayo waxaa loo yaqaanaa marka waxaa isticmaalay right hand grip rule ayaan isticmaalnay. marka direction-ka marka saasaa lagu soo saaraa. direction-ka marka laba qaab waaye uu ku dhashto mar walba north-ga ayaad raacaysaa
mar waxaa jirta marka north pole-ka mar north pole-ka oo dhinacan uu ka maray tusaale oo kale markii saan oo kale aan sameeyno sida coil-ka oo kale duub markaas u sameeyno hadduu meeshan uu noo soo maro direction halkan uu soo maro suulka dhinacana soo aadinaysaa suulka markaad dhinacan soo aadisidne debka marka muxuu current-ka halku uu soconayaa isla direction-ka jihada ayuu current-ga soo aadayaa marka suulkaaga markuu dhinacan uu soo aado suulka markuu dhinacan uu soo aado debka wuxuu sameynayaa increasing ayuu sameynayaa macnaha waa markii north pole dhinacan uu soo aado magnetka uu macnaha towards the coil magnetka markuu dhinaca coil u soo socdo wuxuu sameynayaa magnetka coilkaas marka wuxuu sameynayaa north pole waxaa isticmaalaysaa suulka aad isticmaalaysaa farahan kor ayuu kusoo maraya guud ahaan haddaan soo khulaaseeno sidee lagu ogaadaa directionka current-ga ka dhasha anagoo isticmaalayna xeerka Lenz's law direction current-ga waxaan ku ogaanaynaa waxaan isticmaalayna waxa loo yaqaan right hand thumb rule ama right hand grip rule right hand grip rule marka maxaa waaye faraha waxay ku tilmaamayaan directionka ugu socdo current-ga suulkana wuxuu ku sheegayaa directionka north pole-ka marka north pole maxaa waaye mar walba suulka waxaad aadinaysaa meesha uu cirifka north uu ka jiro automatically markaad directionka aad north pole-ka dhinaca aad soo aadiso waxaad helaysaa direction-kana waa wuxuu soo aadayaa isla dhinacii north pole-ka ayuu soo aadayaa waayahay cases of Lenz's law marka Lenz's law waa maxay Lenz's law wuxuu leeyahay two cases deerar waxaa jira marka two case laba xeer ayaa jirto lagu ogaado ama lagu sharaxo xeerka Lenz's law Lenz's law mar wuxuu sameeyaa when mar magnetka ayaa is moving towards the coil magnetka birlabta ayaa waxaa loo dhaqaajiyaa xagga coil-ka ayaa loo dhaqaajiyaa marna maxaa waaye when the magnet mar magnetka ayaa is moving away waxaa laga soo dhaqaajiyaa coil-ka macnaha mar magnetka ayaa ka soo baxo coil marka waa kana labadan xeer ayaa waxaa loo yaqaanaa Lenz's law waaye Lenz's law labadan xeer case-ka ayaa sharaxay maxaa waaye mar magnetka ayaa ku socda coil-ka marna magnetka ayaa ka soo socda coil-ka waayahay labada xeer waa kuwa marka labada xeer halka ayaan ku faahfaahineynaa marka maxaa la when marka magnet birlabta is moving towards the coil xagga coil-ka u sii socoto waa kana sawirka maxaa kaaga muuqdo magnetka wuxuu u sii socdaa xagga coil-ka maxaa dhacaya marka markuu magnetka xagga coil-ka u socdo magnetka markuu xagga coil-ka u socdo magnetka markuu xagga coil-ka u socdo waxaa dhacaya horta marka ugu horeeya coil-ka wuxuu leeyahay magnetic flux ayuu ka samaysan yahay magnetkana wuxuu ka samaysan yahay magnetic flux marka magnetka markuu kusii socdo coil-ka waxaan sheegnay waxaa samaysmaya induced current deb ayaa ka dhashta debkaasi markuu ka dhashta uu magnetka kusii socdo coil-ka debkaas wuxuu sameeyaa increasing sida saacad idin kaga muuqato saacadda maxaa waaye xagga midigta ayay u dhaqaaqday saacadda markay xagga midigta ay u dhaqaaqdo debku wuxuu sameynayaa increasing debku markuu increasing uu sameynayana coil-ka increasing ayaa ku dhaca marka coil-ka magnetic flux markuu increasing uu ku dhaco maxaa sameysmaya marka increasing tusaale markuu increasing uu sameysmaya waxaa loola jeedaa tusaale kasoo qaad coil-ka marka ugu horeeya magnetic flux inuu ahay kasoo qaad 10 magnet ayaa waxaa loo soo dhaqaajiya xagga coil-ka marka magnet marka xagga coil loo soo dhaqaajiyana waxaan soo sheegnay haddeertaan in saacadda galvanometerka ay sheegayso inuu debku increasing uu ku dhacay marka debkan waxa magnetkan wuxuu soo kordhiyay kasoo qaad 10 ayuu soo kordhiyay marka guud ahaan current-ka halkaas ka dhashtay wuxuu noqday 20 marka maxaa waaye induced current deb ayaa ka dhashtay marka debkan dhashtay Lenz's law xeerkiisa wuxuu yahay mar walba induced current-ga dhashta debka dhashta waxaa cagsi ku noqonaya qaabka debka uu ku dhashtay ayuu cagsi ku noqonaya calaashaan wuxuu sheegayaa xeerka Lenz wuxuu yahay mar walba induced current-ga direction-ka jihada uu debkaas ku dhashtay ayuu wuxuu ka horkeenayaa isla direction kale uu opposite ku ah debka qaabka uu ku dhashtay ayuu ka horkeenayaa hadda maxaan dhahnay magnetic flux-ka coil-ka markuu asal ahaan markii hore wuxuu ahaa 10 magnet ayaa waxaa loo soo dhaqaajiyay xagga coil-ka wuxuu soo kordhiyay 10 magnetka marka xagga coil-ka loo soo dhaqaajiyo when a magnet is moving towards the coil marka magnetka xagga coil-ka loo soo dhaqaajiyo debku wuxuu sameeyaa increasing ayuu sameeyaa oo waa uu soo kordhaa
marka dab markuu magnetic flux coilka 10 ayuu ahaa wuxuu ku soo kordhiyay 20 ayuu noqday markuu 20 uu noqday magnetic flux coilka current ka dhashta current halkaas waxa ka dhashta current ayaa dhashtay dab currentigaas oo cagsi ku ah wixii uu inta qiimo uu soo kordhiyay magnetka ayuu cagsi ku noqonayaa calaashaan magnetka uu soo kordhiyay 10 ayuu soo kordhiyay marka currentiga halkaas ka dhashta asna wuxuu noqonayaa 10 marka magnetka 10kii ayaa loo celinayaa 10kii ayuu celinayaa ee repulsion ayuu macnaha raba in uu sameeyo macnaha uu iska caabinaya marka uu iska caabiyo magnetic flux coilka weli 10kii ayuu baaq ku ahaanaya micnaheedu waxa loo jeedaa Lenz's law mar kale hadaan si kale u sharaxno Lenz's law waxna ma lagu soo kordhin karo waxna ma lagu nusqaamin karo waa sida energy conservation oo kale waa energy conservation muxuu ahaa the energy tamartu cannot be created lamana abuuri karo nor can it be lamana burburin karo laakiin marba form ay isku bedeshaa marka magnetic fluxka markii magnetka loo dhaqaajiyo xagga coilka coilkii wuxuu noqdaa increasing waa uu kordhaa ka soo qaad coilka markuu u horay inuu ahaa magnetic fluxki inuu ahaa 10 magnetic fluxki ka dhashtay markuu magnetka uu ku soo dhaqaaqay coilka wuxuu noqday 10 increase haduu noqdo saacada wuxuu u dhaqaaqayaa dhanka midig ayuu u baxaya maadaama increase uu noqday halkaas markuu dabkaas increasing uu magnetka uu ku soo dhaqaaqay xagga coilkana currentiga halkaas ka dhashtay currentiga uu sheegay galvanometerka wuxuu cagsi ku yahay ama wuxuu soo saarayaa qiimihii uu soo kordhiyay magnetka qiimo la eg ayuu currentigaas uu soo saarayaa marka muxuu soo saaray maadaama magnetka uu 10 soo kordhiyay currentiga wuxuu sheegayaa 10 marka magnetkii qiimihii 10kii ayaa isla markii loo celinayaa 10kii ayaa magnetka u laabanaya mar walba magnetic fluxka isbedelka ku dhaca dabkaas ka dhashta wuxuu cagsi ku yahay currentiga dabkaas ka dhashtay motionka xagga directionka oo mar walba dabkaas u socdo marka hoosta halkaas waxaan fahmay in la fahmay marka the current flows dabkaas halkaas ka dhashta waxaa loo yaqaanaa anti-clockwise direction anti-clockwise direction saacad wareega alla ama counter-clockwise goorme anti-clockwise directionka waxay noqotaa markii magnetka mar kale aan ku celiyo waxaan dhahnay currentiga halkaas ka dhashta waxaa loo yaqaanaa anti-clockwise direction anti-clockwise directionka waa goorme anti-clockwise directionka waxaa loo yaqaanaa markii magnetka uu ku soo socdo towards the coil xagga coilka markuu uu ku soo socdo aa loo yaqaanaa marka maadaama magnetka uu is moving towards the coil magnetka maadaama uu soo socdo xagga coilka waxaan rabnaa inaan sheegno directionka sidoo noqonaya directionka dabka halku u socdaa magnetka ka soo qaad xagga halka inuu yahay magnetka dhinaca inuu yahay south dhinacaan inuu yahay south intana inuu yahay north halkaasna waa north waa magnetka markuu ku soo socdo coilka wuxuu sameynayaa marka isla boolka cirifka ku soo socdo cirif la mid ayuu ka hor keenayaa halkan wuxuu noqonayaa north halka dambana wuxuu noqonayaa south ayuu noqonayaa halka dambana wuxuu noqonayaa south goorme waa magnet markuu ku soo socdo coilka magnetka markuu ku soo socdo coilka magnetka hadduu north pole u yahay afka hore coilka wuxuu ka keenayaa isla north pole halkaas marka maxaa ka dhalanaya halkaas waxaa ka dhalanaya waxa loo yaqaan repulsion kala tegid waa xeerkii waxaa ka dhalanaya magnetka laws of magnet wuxuu ahaa like poles sameynaya repulsion ay sameynayaan way kala tegayaan calaasaan Lenz's law xeerkiis waxa waaye asaga waxna ma qaato waxna ma lagu daro waxna ma nusqaamiyo marka hadda waxa idin sheegay magnetka markuu ku soo socdo coilka in coilka uu ku kordhayo qiimo inuu ku kordhayo qiimahaas kordhay qiimo leeg ayuu currentiga soo saarayaa si uu ugu harkeena dabkan uu iska mar walba Lenz's law xeerkiis waxa waaye dabka uu iska soo diidaya currentiga ka dhashta waa iska soo celinaya marka hadda direction ma soo saari karnaa directionka ma soo saari karnaa currentiga haddii meeshaan uu ahaa south pole halka magnetka inta uu ku yahay north pole maxaan dhahnay maadaama towards the coil markuu magnetka markuu xagga coilka u socdo isla boolkii oo ku sii socdo boolka ku socdo coilka ayuu ka horkeenayaa coilka xagga inta wuxuu noqonayaa south poleka direction ku soo saari karnaa directionka wuxuu ahaa suulka waxaad aadinaysaa xagga north poleka saad u jeed u fiirso suulka waxaad aadinaysaa markuu leeyahay xagga north poleka
maxay noo soo haray maadaama suulka aan aadin xagga north pole coilka dibka marka say ku soo saaraynaa farahan waxaad aadinaysaa xag isla xaggii north pole ka aadinaysaa marka faraha kor ay sidaas directionkiisa xagga ay u soconayaan marka waa karaan dibka marka xaggu u socdo dibka marka muxuu sameynayaa dibka wuxuu sameynayaa increasing ayuu sameynayaa marka qaabkaas dibka markuu increasing sameynayana waxaa loo yaqaanaa anti-clockwise ayaa loo yaqaanaa gacanta mar walba directionka halkaas ayay u soconaysaa marka haddii lacala sabir lagu dhigo halkan waxaa lagu dhigi kasoo qaad halkan magnet ayaa lagu dhigay haddii meeshaan tahay south pole halkan north pole maxaad sameynaysaa coilka haddii mar walba cirifka kusoo socdo ayuu ka hor keenayaa xagga dambena wuxuu noqonayaa cirifka kale north pole-ka marka halkaas waxaa ka sameysmaayo repulsion way kala tegayaan maadaama ay kala tegayaan marka saan oo kale waxaa lagu dhahay directionka dibka sheeg direction dibka maxaa sameynaysaa adoo isticmaalaya right hand grip rule ama waxaad isticmaalaysaa right hand thumb rule maxaa sameynaya suulka waxaad aadinaysaa xagga north pole-ka coilka currentiga ayaad soo aadinaysaa direction dibkan maxaa ka ogaanaysaa marka faraha ayaad ka ogaanaysaa mar walbana faraha waxaad aadinaysaa mar walba xagga uu suulka uu aaday ayaad faraha aadinaysaa dibka wuxuu sameeyey increasing ayuu sameeyey waa uu kordhay dibka hadduu kordhan waxaa loo yaqaanaa anti-clockwise direction ayaa loo yaqaanaa anti-clockwise direction ayaa loo yaqaanaa kaas maxaa marka waa magnet markuu kusoo socdo coilka number labo when a magnet away from the coil magnetka ayaa markaan waxaa laga dhaqaajiyay ilayna waxaan soo sheegnay Soomaaliya cases inay jiraan laba caseod ee la isticmaalo magnetka haddana magnetkii ayaa laga soo dhaqaajiyay coilka maxaa dhacaya markaasna magnetka marka laga soo dhaqaajiyo coilka maxaa dhacayo magnetka markii coilka laga soo dhaqaajiyo hore waxaan u sheegnay mar walba coilka wuxuu leeyahay magnetic flux magnetkan ka soo baxay coilkana wuxuu abuurayaa isla magnetic flux ayuu abuurayaa marka saacadii waxay noqonaysaa decreasing waay hoos ayaa u dhacaysaa markii magnet laga soo dhaqaajiyo coilka waxaa sameysmaayo coilka waxaa ku dhacayo currentiga waxaa ku dhacaya decreasing ka soo qaad magnetka marka hore inuu ahay 20 coilka magnetic fluxkiisa wuxuu ahay 20 maadaama magnetka away from the coil magnetka maadaama uu ka soo baxay coilka xaggiisa uu ka soo dhaqaaqay decreasing ayaa dhacay decreasing ka dhacay ka soo qaad inuu yahay 10 ayaa decreasing ku dhacay marka maadaama magnetic fluxka uu ahay 20 magnetka uu sameeyay away from the coil uu decreasing uu sameeyay 10 uu jartay currentiga halkaas ka dhashtayna wuxuu soo saarayaa qiimihii magnetkii sii socday qiimihii uu jartay qiimo la eg ayuu currentiga soo saarayaa marka muxuu soo saaraa asne currentiga wuxuu soo saarayaa saacad galvanometric waxay soo saaraysaa qiimo 10 ay soo saaraysaa marka halkaan magnetic fluxka wuxuu noqday 10 waxaad u geynaysaa 10kii uu currentiga uu soo saaray meeqa noqonay 20 mar walba marka maxaa waaye qiimahan isma dhimaayo mar walba increasing uu dhaco qiimihii soo kordhay ayuu ka jaranayaa currentiga ka dhashtay markuu decrease uu dhaca magnetka uu away from the coil magnet markuu coil ka sii socdana qiimihii uu coilka uu sii jartay magnet qiimihii uu decreasing ku sameeyay qiimo la eg ayuu currentiga soo saarayaa mar walba marka magnetic fluxka coil qiimaheeda mar walba waa constant maxaa waaye waxna lagu soo kordhiyo waxna wixna ma nusqaamiyo markii coilka uu ku dhaco decreasing marka coilka uu ku dhaco decreasingna waxaa loo yaqaanaa the current flows qulqulka danabkaas waxaa loo yaqaanaa clockwise direction ayaa loo yaqaanaa clockwise direction when a magnet away from the coil maxaa loo yaqaanaa currentiga clockwise direction marka when a magnet is moved towards moving markuu magnet uu ku soo socdo coilkana maxaa loo yaqaanaa anti-clockwise direction ama counter-clockwise direction marka haddana ma soo saari karnaa directionka jihada uu naga jiray currentiga ha sida daad oo kale waan soo saaraynaa maxaa waaye magnetka maadaama uu ku sii socdo inta aan ka soo qaadno inta inuu yahay south pole intan inuu yahay north pole marka coilka asna muxuu noqonayaa marka coilka maadaama uu ka sii socdo muxuu sameynayaa boolka coilka ka sii socda mid cagsi ku ayuu soo saarayaa coilka magnetka waxaan dhahnay magnetka markuu sii socdo boolka sii socdo mid la mid ayuu currentiga soo saarayaa halkaan waxaa leenahay south pole halkaan waxaa noqonaynaa north pole
ilaan mar walba waxaa la rabaa labadaani inay noqdaan direction kala duwan inay soo saaraan la rabaa hadday when a magnet towards the coil magnet markuu coil ku soo socdo halkan wuxuu sameynaya repulsion had laakiin wuxuu sameynaya attraction oo waa soo jiidanayaan maadaama labada cirif ay kala duwan attraction ayuu sameynaya direction current-ga ardayow haddii lagu dhaho halkan lagu dhigo magnet lagu dhigo magnetkan uu falaard ay tilmaamayso away from the coil uu ka soo baxayo halkaana lagu dhigo coil oo lagu dhaho soo saar directionka uu socdo coil current-ga waxaa sameynaysaa halkaani waa south pole noqonaysa inta waa north pole marka coilka wuxuu soo saarayaa mid cagsi ku ah magnetka wuxuu noqonayaa south pole intan wuxuu noqonayaa north pole marka direction current maxaa lagu ogaa jiray direction current waxaa lagu ogaa jiray mar walba xagga suulka waxaad aadinaysaa xagga north pole-ka ayaad aadinaysaa marka suulka halkan ayuu soo aadayaa maadaama suulka halkan uu soo aaday farahane waxay noqonayaa isla directionkii suulka ayay soo aadayaan oo qaybta kore ayay usoo qaadanayaan sidaasi ayuu dabka usoo qaadanayaa marka decreasing ayaa dhacay markii ay saacadda ay sidaan waxay sameynaya marka dabkii sidaa ayuu noqonayaa dabka directionkiisa sidaasi ayuu noqonayaa marka maadaama dabka directionkiisa sidaas uu noqday waxaa loo yaqaanaa clockwise direction ayuu loo yaqaanaa clockwise direction ayaa loo yaqaanaa goormee waa markii when a magnet away from the coil magnet markii coilka laga dhaqaajiyo ama markii current-ga uu ku yimaado decreasing uu ku yimaado ama waxaad kaloo dhihi kartaa markii clockwise waxay noqotaa directionka markii uu magnetka iyo directionka ay kala jiha ay u socdaan waxaan filayaa intaas in la fahmay mar kale haddii aan soo dulmaro maxaan dhahnay labadooda waxaa lagu kala ogaadaa labada caseood lenska waa maxay labada case waa kana maxaa waaye marna magnetka ayaa kusii socda coilka oo waa kana magnetka ayaa kusii socda coilka markii magnetka uu kusii socdo coilka waxaa loo yaqaanaa anticlockwise direction ayaa loo yaqaanaa anticlockwise direction say ku samaysantay anticlockwise direction waxay ku samaysmaysaa hadday magnetka dhinacan ay tahay south pole dhinacan ay tahay north pole-ka coilka wuxuu soo saaraa asne direction oo wuxuu noqonayaa xaggana north pole xaggana wuxuu noqonayaa south pole ayuu noqonayaa dabkii wuxuu noqonayaa increasing goormee magnetka markuu kusii socdo coilka increasing marka magnetic fluxka marka hore hadduu ahay dabkiisa 20 hadduu ahay current-ga maadaama coilka uu kusoo socdo current-ga wuxuu abuuraya increasing dab ayuu halkaas induced current-ga ka dhashanaya kasoo qaad inducing current-ga ka dhashtay inuu yahay 10 marka halkaan muxuu noqonayaa marka current-ga halkaas ka dhashay wuxuu noqonayaa 30 laakiin magnetic fluxka ka abuurmay saacadda ay soo saartay waxay noqonaysaa inta soo kordhay in la eg ayay current-ga soo saaraysaa si mar walba qiimaha magnetka loogu ilaaliyo markaasna waxaa loo yaqaanaa anticlockwise direction sidee ku soo saarayna directionka current-ga waxaad ku soo saaraysaa anagoo isticmaalayna right hand fleming waxaa isticmaalayna waxaa loo yaqaan right hand grip rule aan isticmaalayna ama right hand thumb rule right hand thumb rule no horaan usoo baranay right hand wuxuu ahaa mar walbo suulka waxaad aadinaysaa xagga north pole-ka aad aadinaysaa marka suulka xagga north pole-ka aad aadinana faraha waxay noqonayaan qaab anticlockwise ayuu sameynaa sidaas ayuu magnetka u qabsanaya coilka saas ayuu u qabsanaya dibka wuxuu u raacayaa asagoo dhinac suulka ayuu u raacayaa halkaas waxaa loo yaqaan anticlockwise direction when a magnet away from the coil markii coilka laga dhaqaajiyo magnetkana maxaa dhacaya decreasing waa mar walba inta coilka hadduu ahay 20 magnetka maadaama uu kusii socdo wuxuu ku dhacaya 10 coilka wuxuu noqday 10 maadaama coilka uu 10 noqday current-gaas halkaas ka dhashtayna isla 10kii uu magnetkii uu macnaha uu ka jaray ayuu ku soo celinayaa mar walba lenses law mar walba waa maxay directionka uu u socdo lenses law mar walba wuxuu sheegaa directionka uu current-ga u socdo marka maxaa sameynaysaa inta marka maadaama uu kasii socdo halkaan markay tahay south pole inta ay tahay north pole magnetka halkaan waxay noqonaysaa coilka inta south pole ayuu noqonayaa intan wuxuu noqonayaa north pole si mar walba halkaan ay u sameeyaan attraction direction jihadiisa ku soo saarta current-gana suulka waxaad aadinaysaa xagga north pole-ka kadibna farahay coil qaab si kor ayuu usoo qaadan dabkii sidaas ayuu noqonayaa dab maadaama increase uu noqdana waxaa loo yaqaanaa anticlockwise direction ayaa loo yaqaanaa jihadaasi halkaas marka waxaan kaga bixinaa labada kaysood
halkan waxaan kaloo ku baranaynaa qaabka magnetka markuu ku soo socdo iyo markuu ku sii socdo sidee ayuu u shaqeeyaa waxaa lagu leeyahay marka when a magnet markii magnet when marka the north pole cirifka waqooyi uu ku sii socdo magnetka is moved towards the coil xagga coilka markuu u sii socdo coilka wuxuu soo saaraa waxa loo yaqaano isla cirif ku sii socdo ayuu soo saaraa halka u fiirso inta wuxuu ahay south pole inta wuxuu ahay north pole maadaama magnetka uu towards the coil uu yahay coilkan wuxuu soo saarayaa isla cirifka ku soo socda ayuu soo saarayaa north pole-ka number 2 muxuu ku dhahay when the north pole marka cirifka waqooyi of the magnet below move it away from the coil markay coilka ay ka soo socotana coilka bolkiis wuxuu noqonayaa south pole ayuu soo saarayaa maxaa lagu dhahay markii away from the coil magnet markuu coilka ka soo socdo magnetka directionka soo socda boolka soo socda bool cagsi ku ayuu soo saarayaa halkaan waxay noqonaysaa south pole halkaan waa north pole directionka currentigana halkaan waa ka soo saari karnaa direction currentiga halkaan maadaama coilka halkaan directionka ku soo saarayna direction currentiga wuxuu noqday coilka halkaan ayuu soo marka suulka halkaan ayaad soo aadinaysaa suulka maadaama inta uu soo aaday dabka muxuu noqonaa marka dabka qaybta kore sidaas ayuu currentiga ayuu u soconayaa maadaama currentiga qaabkaas u soconayana waxaan u bixinay anti-clockwise ayaa loo yaqaanaa saacad wareeg haye markii magnetka uu ka soo baxo coilkan maxaan dhahnay coilka wuxuu noqonayaa coilka halkan wuxuu soo saarayaa qiimihii magnetka sii socda mid opposite ku ayuu soo saarayaa south pole intan wuxuu noqonayaa north pole-ka hayaasna ma soo saari karnaa directionka currentiga waxaan sameynaynaa suulka waxaad ku soo aadinaysaa xagga north pole-ka maadaama suulka xagga north pole uu ka soo aaday dabka marka faraha currentiga qayb sida kor ayuu macnaha hoos ayuu soo baxay currentigana sidaas ayuu marka kan waa decreasing waxaana loo yaqaanaa clockwise kanna waa increasing waxaa loo yaqaanaa anti-clockwise marka waa micnaha mar walbo waa change of magnetic flux waay marka Faraday's law iyo Lenz's law halkaan fiirso waa Faraday's law iyo Lenz's law waay Faraday's law wuxuu sameeyay labadaani labadoodu waxay sameeyeen change of magnetic flux waay isbedel ku dhacay magnetic flux-ka maxaa waay kan magnetic flux ayuu soo kordhiyay maadaama magnetic flux uu soo kordhiyay Lenz's law wuxuu sameynayaa currentiga halkaas ka dhashta wuxuu cagsi ku yahay currentiga dhashtay ama uu soo kordhiyay magnetka qiimihii soo kordhiyay qiimo la eg ayuu soo celinayaa ilaan direction la mid oo ayuu soo saar directionka induced currentiga direction la mid oo ayuu soo saaray magnetic flux-ka kanna maxaa waaye waxaa loo yaqaanaa clockwise waay maxaa waaye magnetic flux-ka decreasing ku dhacay maadaama magnetic flux-ka decreasing uu ku dhacayna qiimihii uu decreasing ku dhacay qiimo la eg ayuu soo saaraya currentii coilka si marka labada marka Faraday's law Lenz's law xiriir ka dhaxay maxaa waaye Faraday's law wuxuu ku sheegayaa isbedel ku dhacay labadaan caseood isbedel ku dhacay kanna waa decreasing waa increasing kanna waa decreasing kan maadaama increasing uu sameeyay directionka currentigana isla qiimihii ayuu macnaha uu ka jarayaa kan maadaama decreasing uu sameeyay qiimihii decreasing qiimo la eg markuu currentiga uu soo saarmo ayuu ka jaraa marka Lenz's Faraday's law waa maxay Faraday xeerkiis waxaa loola jeedaa isbedel ku yahay magnetic flux-ka marna wuu kordhayaa marna wuu yaraanayaa laakiin Lenz's law waa maxay Lenz's law waxa waaye directionka jihada uu u socdo currentigaas uu ku sheegaa marka currentiga la kordhiyo asagana wuu kordhayaa marka currentiga la yareeyo waa decreasing ayuu ku sameynayaa tusaale marka halkaan example ayuu book qorayaa halka example booka ayaan halkaan ku qaadanayna maxaa loo dhahay marka wuxuu ku dhahay loop fiilo of wire loop fiilo ayaa it is plane-keeda ama salaxeeda ama fadhigeeda waa horizontal qaab jiif waay and a bar magnet qaab ul oo kala baar ayaa is dropped from ayaa waxa laga soo tuuray above kor maxaa waay halkaan waxa inoo yaalo coilkii oo horizontal waxaa lagu soo tuuray magnet ayaa lagu soo tuuray so that it falls through the loopku wuxuu ugu dhacay magnetka xagga north pole-ka halkaan waxaa ujeedaa xagga north pole-ka ayuu magnetka kaga dhacay
loopka. First ugu horeyn as shown in the figure below sida sawirka hoose kaaga muuqdo find soo raadi the direction jihada of the current dabka induced ka dhashay in the loopkaas dabka la qaadsi directionkiisa sheeg marka hore waa soo baranay maxaa markaana waa magnet where is the coil magnetka wuxuu u sii socdaa xagga coilka ayuu u sii socdaa marka maadaama magnetka xagga coilka u sii socdana directionka waxa leenahay directionka waa increasing maadaama uu noqdeen waxa leenahay direction currentiga wuxuu soo saarayaa waxa loo yaqaano anti-clockwise direction ayuu soo saarayaa marka jawaab saxda waxay noqonaysaa when a magnet markuu ku sii socdo coilka direction soo saarada lagu maxaa leedahay waa anti-clockwise direction markii magnetka uu away from the coil magnet markuu coil ka soo socdana direction soo saar marka lagu dhaho induced current waxa leedahay waa clockwise direction marka example ka book uu qoray maadaama magnet uu ku sii socdo coilka directionkaas waxa leenahay anti-clockwise direction waa soo saari karnaa xitaa anagoo isticmaalayno suulka maxaa leenahay suulkaaga waxaad aadinaysaa suul marka muxuu noqonayaa magnetkan wuxuu coilka maadaama coilka sidaan uu yahay coilka halkan wuxuu soo saarayaa north halkan wuxuu qaybta hoose wuxuu noqonayaa south marka waxa leedahay marka adoo isticmaalay right hand grip rule maxaa sameynaysaa suulka xagga waxaad aadinaysaa suulka xagga northiga ayaad aadinaysaa maadaama suulka xagga northiga aad aadisanay direction currentiga farahane qaabkaas ay ku sameysmayaan marka maxaa waaye waxa loo yaqaan anti-clockwise direction ayaa loo yaqaanaa waayahay waxaan kusoo gabagabeynaynaa chapterka electromagnetic inductionka cashirka saddexaad ee Lenz's law waxaan kusoo gabagabeynaynaa applications waxyaabaha loo isticmaalo Lenz's law Lenz's law waxaa kamid ah qalabkaas oo loo yaqaano eddy current balancing oo ah mar walba waxaa lagu cabiraa qiyaasta dabka ka dhashta lambar 2 applicationada waxaa kamid ah eddy current dynamometers diinimada ayaa sidoo kale wuxuu u sameeyaa qaabka Lenz's law mar walba direction current u socdo maayne direction kale ayuu soo saaraa directionka uu ku dhashtay currentiga maayne direction kale ayuu soo saaraa lambar 3 waxaa kamid ah waxyaabaha loo isticmaalo Lenz's law applicationada waxaa kamid ah braking system on train tareenada breegada qaabka ay u shaqeeyaan oo kale maxaa waaye magnetic fluxka isbedel ku yimaada wuxuu cagsi ku yahay directionka uu currentiga ku socdo lambar 3 waxaa kamid ah applicationada waxaa loo yaqaan car reader qalabkaas oo kale kamid ah waxaa kaloo kamid ah AC generator motorada loo yaqaan AC generatorka waayo marka waxaan u laabanaynaa maadaama hadda aan fahno Lenz's law-ga waa kana marka Lenz's law hadii state Lenz's law maxaa leedahay laba qaab oo uu jawaabi kartaa Lenz's law wuxuu sheegayaa the induced EMF currentiga dhashta will be such direction as to opposite jihadiisa waxay cagsi ku tahay isbedelka ku yimaada magnetic fluxka marka mar walba Lenz's law hadii maxaa waaye Lenz's law xeerkiisa wuxuu sheegayaa mar walba wuxuu cadeynayaa ama determine wuxuu go'aamiyaa mar walba and the direction jihada of the used currentiga soo dhashtay direction u socdo ayuu go'aamiyaa ama waxa dhici karta Lenz's law wuxuu sheegayaa that the induced currentiga ka dhashta markii coil iyo magnet ay isku dhaqaaqaan currentiga ka dhashta is such that it opposite currentigaas wuxuu cagsi ku yahay isbedel ku yimaada magnetic fluxka ayuu cagsi ku yahay sidoo kale waxaan leenahay Lenz's law xeerkiisa wuxuu la mid yahay energy conservation maxaa waaye Lenz's law waxna ma lagu soo kordhiyo waxna macnaha lagama nusqaamiyo marka waxaa loo yaqaanaa waa energy conservation haddii qiimo lagu soo kordhiyo coilka qiimihii currentiga ka dhashtay qiimihii soo kordhay qiimo la eg ayuu u celiyaa markii coilka uu ku dhac decrease-na qiimihii magnetka uu jartay qiimo la eg ayuu currentiga soo saaraa si mar walba Lenz's law-ga uu u ilaaliyo coilka halkaas aan ku gabagabeynaynaa chapterkii electromagnetic inductionka waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu